بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لهيك قالي وإن سلامة سيدادو دنتهين يميل والبو أدونك أدك جوكتان وولاشين حياضو إذن لمركا ليكولنتي وناكسن كسو دوادا channel كيغا cooking with حياة فضلان مركا هوري هدي آد نيغو عصوب تهي ان سبسكرايب صار channelka meesha guduudan taabo kadibna kambaleelka riixsi yani video walba uu kuugu soo dhaco markii aan soo galiyo ugu horeynna aad noqotid qofka yani ugu horeeya ee daawada insha Allah waana ku mahadsan tahay walaalahayga qaaliga maanta waxaan rabaa in aan idinla wadaago casho yar fudud aadna basiid u ah daqiiqado yarna aad ku sabaysan kartid insha Allah aadna u macaan markii aan dhameynana sidan ayaa inoogu soo baxday insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan biidnillah samaysan doontaana qofkii yani waqtiga uu ku yaryaho kale iyo qofkii raba yani casho fudud oo easy ah insha Allah muddo yarna lagu yani karin karo markii aan dhameynana sidan ayaa ku soo baxday walaalahayga haddana waan kala jarayaa si aad u aragtaan gudihiisa insha Allah waa fadaayir oo qudradiisa leh haddii aad rabtidna bilaa qudrad waa ka dhigan kartaa insha Allah sidii adiga aad jeceshahay marka ayaa u samaysan kartaa biidnillah dhexdiisa ayaan idin tusayaa si aad u aragtaan gudaha lama rabo in uu noqdo yani si cajiin ah ama si fuura inuu noqdo lama rabo waxaa la rabaa si yani qaleel ah inuu gudaha ka noqdo insha Allah وكاي dhexdiisa waan idin tusayaa sida rootiga kale ma ahan insha Allah marka haddana daawasho wacan sida u sameeyay haddana waan sameysanaynaa walaalahayga qaaliga ah awalan bismillah waxa halkan iigu diyaarsan ama aad u jeedaan 3 koob oo yani bur ah koob caano saliid 3 qaando ah sonkor halka iigu jirta xabad ukun ah qamiir ama leebato cusbo yar inta ayaan ka qasanayaa insha Allah cashada caawa saddexda bakeeri aan qasaayo kama wada dhigayo cashada caawa sidoo kale waxaan rabaa in aan ka reebto qayb oo rooti aan ka sameynayo insha Allah marka cajiinka aan qaso ila soo walaalahayga qaaliga ah qaybna waxaan ka sameynayaa cashada caawa ee fataayirka insha Allah marka haddana waxaan isku darayaa alaabaheeni ama isku dardarkeeni aan ka sameysan lahayn cashadeena kadib waan isku walaaqayaa leebatadii saliidii ukuntii cusbadii iyo sonkortii insha Allah intaas ayaan isdhex gelinayaa marka hore kadibna waxaan ku darsanayaa caano yar si ay si wanaagsan isugu milmaan u baaba'aan sonkorta iyo leebatada insha Allah ama qamiirka ama fixiso hadba saad u taqaanid qof walba si ayuu u yaqaanaa marka insha Allah waxaan rajeynayaa in aad fahmaysaan waxaan rajeynayaa in aan idin fahansiiyo wax walba oo aan sameynayo insha Allah marka haddana caano kale ayaan ku darsaday waana walaaqayaa kadib burkii ayaan ku darayaa koobkii u horeeyay waana walaaqaynaa insha Allah si wanaagsan ayaa u walaaqaysaa marka dambena gacanta ayaan kusoo xashi doonaa walaalahayga qaaliga ah ila socda kadib hadda koobkii labaad ayaan ku daray koobkii labaad markii aan ku daray kii saddexaad ayaan ku daray ee u dambeeyay kadib si wanaagsan ayaan walaaqayaa caanihiin ayaan ku daray sidaad u jeedaan marka isdhex geliyeen oo si fiican ee isku dhex galaan alaabta gacanta ayaan kusoo xashayaa kadib waan isku soo laabanaynaa walaalahayga markii aan soo xashay insha Allah waan soo dhameeyay walaalahayga waa soo xashay sidaad u jeedaan kadib waan daboolanayaa muddo 30 daqiiqo ah ayay ii taaleysaa insha Allah marka kadib ayaan isku soo laabanaynaa haddana walaalahayga qaaliga ah haddana cajiinkeeni ayaan soo kala goostay sidaad u jeedaan laba qayb ayaan ka dhigtay qaybna waxaan ku soo reebtay baaquligii uu ku jiray oo insha Allah hadduu rabbiga wadala isaamaxo waxaan ka dhigi doonaa rooti ayaan ka samaysan doonaa marka hadda qaybtii aan caawa ugu talagalay cashada ayaan idinla wadaagayaa walaalahayga sharafta leh kadib qaybtii ayaan qaybo yaryar kasii kala dhigayaa sidaad aragtaan aad u yaryar oo isla eg qiyaastana waa inaad isla ekeysiisid inuu kala waaweynaadana lama rabo insha Allah inuu kala yaraadana lama rabo cabir isla siman ayaa ka dhiganaysaa insha Allah inta xabo uu noqdana waan arki doonaa marka insha Allah halkana waxaa ii taala walaalahayga qudaartaas oo ii karsan waa qudaar karsan videogan midka ka horeeyo
ayuu ku jiraa qudaartan aniga oo diyaarinaya. Haddii aad u baahan tahay wixii aan ka sameeyey inaad ogaatid fiidiyowga gadaal ugu noqo insha Allah waa arki doontaa biidnillah waxyaabaha ay ka kooban tahay. Marka haddana xabadii u horeysay ayaan fidinayaa walaalahayga sharafta leh. Bur ayaan ku shubtay halka aan ku fidinayo si aysan iiga dhegdhegin cajiinka dhulka ama uusan ii dhibin. Haddii aad rabtid saliid ayaa marsanaysaa laakiin burka ayaa ka fiican insha Allah. Marka dhexdana qafiif ayaa ka dhigaysaa. Haddana qudaartii ayaan ku ridayaa walaalahayga sidaad u jeedaan. Qudaartana markii aad ku ridaysid qudaarta ha yaraato aad ha u badinin oo waayo burka ayaa yar ama cajiinka ayaa yar si uusan hadhow dhexda kaaga dilaacin. Qudaarta ku yaree insha Allah. Marka hadda geesaha ayaan ka xirayaa fargeeto ayaan isticmaalayaa sidaad aragtaan. Fargeetada ayaan isticmaalayaa oon ku xirayaa walaalahayga. Tii labaad ayaan fidinayaa sidaad u jeedaan xabadii labaad ilaa dhowr xaba ayaan idin tusayaa oo markii aan fidinayo waayo haddii aan dhaho waxoo dhan waan idin tusayaa kama gaarayo oo waqtiga ayaa nagu sii dheeraanaya insha Allah. Waxaan isku dayayaa si aan waqtigana u yareeyo idinkana aan idin fahansiiyo insha Allah. Kadib qudaartii ayaan ku ridayaa xabadii labaad sidaad u jeedaan. Weygii hore baa marayaa aantii hore maray. Kadib fargeetada ayaan haddana afka uga xirayaa insha Allah. Waa wax aad basiid u ah qof walbana fahmi karo sida aan rajeynayo. waad u jeedaan. Kadib saxankii ayaan sii saaranayaa xabad walba oo aan diyaariyo saxanka ayaan kusii diyaarsanayaa insha Allah. kadib haddana xabadii saddexaad oo xabadan ayaa u dambeysa intaa idin tusaaya. kadibna kuwa kale markii aan soo diyaariyo oo aan saxanka soo wada saarto ayaan isku soo laabaneynaa hadduu rabbiga awoodda leh inoo saamaxo. walaalahayga sharafta leh ila socda si aad u aragtaan insha Allah. walaalahayga waa aragtaan saxankii ayaan kusoo wada diyaarsaday qaybtii aan soo wada sameeyey iima wada qaadaya saxanka laba qayb ayaan ka dhigan doonaa biidnillah. marka hadda halkan taqriiban waa 6 xabo sidaad u jeedaan. waxaan marinayaa ukun iyo caano yar aan isku soo qasay. haddii aadan haysan ukun caanahoo kaliya ayaa kaaga filan insha Allah. caanahana waa caano boore. caano booraha ayaa fiican markii aad korka ka marinaysid rootiga ama fadaayir wuxuu doona ha noqdo wixii markaa aad sameynaysid caano booraha ayaa fiican insha Allah. marka sidaa ayaa usoo marinaya walaalahayga korka ayaan ka marmarinayaa. ukuntii caanaha waxay kaa sahlaysaa inuu yacni guduud kuu noqdo rootiga insha Allah. marka waxaana ku dubi doonaa foornada 180 oo Celsius ah kuleelka 30 daqiiqo oo daqiiqadaha ah iyo kor iyo hoos ayaan ku dubayaa insha Allah. sidaa ila socda markii aan soo dubo ayaan isku soo laabaneynaa oo aan kasoo bixiyo foornada biidnillah. siduu noqdana waa ila arkaysaan asxaabteeda qaaliga ah hadduu rabbiga awoodda leh inoo saamaxo. ugu dambeyntii sidan ayuu kusoo baxay markii aan kasoo saaray foornada walaalahayga qaaliga ah. labada xabana ee u horeyso si flower ayaan u sameeyey insha Allah oo rootiga intii yacni kasoo hartay cajiinka ayaan ku sameeyey. marka dhinacii hoosena waa kana sidan ayuu kusoo baxay sidaad u jeedaan walaalahayga qaaliga si aad u qurux badan oo guduud ah ayuu inoogu soo baxay maasha Allah. aadna way u macaan badan tahay. waxaan rajeynayaa inaad soo tijaabisaan ama aad soo sameysataan insha Allah.
caruurtana aad ayay u jeceshahay maasha Allah xitaa waxaa uga dhigi kartaa waqtiga iskuulka ee tagayaan nus saaca ahaan ayaad ugu ridi kartaa baaga si ay yacni u cunaan waqtiga break time-ka quraacda hadday tahay iyo haddee yacni haddii ay galabkii oo kale tahay waqtigii duhurkii maasha Allah aadna waa softi u yahay ama jileec waaye waxyaabaha suuqa ay ka gadanayaan caruurta waxaa ka wanaagsan waxaa adiga gacantaada ku sameysay oo gurigaada aad ku sameysatay oona hubtid waxyaabaha yacni aad ka sameysay ama waxyaabaha aad ku karisay mar walbana waxaa wanaagsan ciyaalka haddii iskool leeyihiin wax adiga gacantaada ugu sameysid inaad siisid ee u qaataan iskuulka insha Allah marka waxaan rajeynayaa inaad sidaa ugu sameyn doontaan caruurta yaryar biidnillah marka walaalaheyga haddana dhexda ayaan ka kala jarayaa sidaad u jeedaan oo dhexdiisa aan idin tusayaa insha Allah siduu noqday si aad u aragtaan insha Allah waa u jeedaan wax cajiin ah gudihiisa ma lahan oo yacni waa qafiif saa'id ah waan sii kala fujinayaa qudaartan waa ku yareynaysaa waxaan qudaarta ugu yareeyay waxa waaye in uusan dhexda ka dilaacin dhexdiisana waa u jeedaan marka walaalaheyga waxaan rajeynayaa fiidiyogeena maanta inaad ka heshaan insha Allah asxaabtiinana la wadaagi doontaan oo sheer dhihi doontaan insha Allah aadna waad u mahadsantihiin waxaan idinku dhaafayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu